gudoomiye ku-xigeenka gobolka Murujaha xisbiga mucaaradka ee wadani Weli Cabdi Jaamac oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka jawaabay hadallo muddooyinka u dambeeyay ka soo yeedhayay gudoomiyaha urur siyaasadeedka Hilaac Professor Axmed Ismaaciil Samatar kaasoo isaga iyo ururkiisaba ay diideen go'aamadii halka siyaasadeed u noqonayay murankii muddooyinka u dambeeyay ka dhaxaloosnaa xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Somaliland ee lagu kala aragti duwanaad soo kala horreysayna doorashooyinka ururada iyo asxaabta siyaasadda Somaliland oo hore u muddeeyeen komishanka doorashooyinka Somaliland geesta kale isagoo si hadlaya wuxuu waxba ka jiraan ku tilmaamay waran muddooyinka u dambeeyay la isla qaadayay kuwaasoo sheegayay in jabhadii buurta gacan libaax dhawaan laga soo rogay oo xisbigoodu ka dambeeyay isla markaana ay ku shaqeynayeen mowqifka xisbiga wadani Axmed Ismaaciil Samatar 28 sanadood buu qaranka Jamhuuriyadda Somaliland cadow ku ahaa 28 sanadood buu godwal oo qaranku galaba uu ka saarayay 28 sanadood buu sun iyo waabay Somaliland meel kasta ugu shubay Axmed Ismaaciil Samatar Axmed Ismaaciil Samatar hadalkiisa maanta waxaan u arkaa borortii ilmadii xaaskeen ahayd uma qaba Axmed Ismaaciil Samatar inuu maanta Somaliland isaga laftiisu u nasteexu yahay waxaan leeyahay Axmed Ismaaciil Samatar runtii oo nin aqoonyahana oo professor abtilo runtii aanu ahay anu shakhsiyan waxaan leeyahay Axmed Ismaaciil Samatar 28 sanadood qarankii aad waranka iyo toorida dhabarka kala dhacaysay ha ugu darin hadima kale oo hay soronin maanta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland dhaawacmay ee iska raacay waxa doonaysa waxa ururo waa lagu dhigayaa ururadii waa la qabanayaa ururkaaga ku tartan nasiibkaagu wuxuu ku siiyana qaado waxaad ahayd ninkii madaxweyne qaranka Jamhuuriyadda Somaliland soo doortay oo Allah xafido Daahir Yaale Kaahin ninkii ku yiri wuxuu ahaa accident president buu ahaa madaxweyne shil ku yimid buu ku tilmaamay Daahir Yaale Kaahin oo codka Jamhuuriyadda Somaliland shacabkeeda ku soo baxay oo doonis ku yimid marka runtii anigu waxaan jecelahay Axmed Ismaaciil Samatar in aanu nabaradii hore uu gaarsiiyay qaranka Jamhuuriyadda Somaliland in aanu nabaro kale ugu darin walow uu ka soo jeedo deegaan aqooni taalo deegaan aqligu taliyo ee aan calooshu talinin deegaan iskale ownershipka Somaliland calankeeda haday tahay jiritaankeeda haday tahay qarannimadeeda haday tahay isku haynta dalka iyo dadka haday tahay gobolka ku suntan ee awdal ee Somaliland hooyada waa uu ka soo jeedaa waxaan aaminsanahay in aanay aragtidiisa kula qabin reer Boorame waxaan anigu isleeyahay ha isku dharirin cid aad isku dharinaysan oo garanayna isku dharirin adigu waxa tahay ownership ha iska dhigin marti wixii aad qaranka dib gaarsiisayna qodhay xirada dib kala ugu darin Axmed Ismaaciil Samatar inuu qaranka dambi ka galay oo uu runtii dhabarka ka toogtay oo uu dhufays u galay oo dib badan soo mariyay waxa inoogu filan wuxuu carabkiisa ka oran jiray go to the maxal oran jiray YouTube Google garay Axmed Ismaaciil Samatar Google gareeya backgroundkiisii wixii uu oran jiray isaga isku marxaati furaya waraysiidii BBC-da uu ka bixin jiray kuwa saxaafadda ka bixin jiray ficilada uu qaadi jiray hadaa aadan adigu yarayd oo runtii aadan markaa qaangaar ahayn anagu raggii runtii markaa jiray baanu ahayn raggii BBC-da ka dhageysan jiray baanu ahayn raggii meel kastuu Somaliland u galo la socday baanu ahayn muwaadiniintii dhalinyartii Jamhuuriyadda Somaliland calankan ku barbaartay ee ku aqliyeysatay baan anigu runtii ahay maantana doonayo inuu wax ka noqdo marka Axmed Ismaaciil Samatar wixii uu geystay waa iqra kitaabak baanu leenahay waxaan jeclaa in aanu isxusuusinin ummadda wixii Axmed Ismaaciil Samatar geystay waxaan jeclaa inuu aayar iskaga tartamo garoonka loo furfuray anagu Axmed Ismaaciil Samatar runtii shakhsiyan uma nicbin deegaanku ka soo jeedana waa deegaanka Somaliland iskale waana ninka madaxweyne qaran oo la doortay ku tilmaamay madaxweyne ku yimid shil marka waxaan leeyahay oo adeer aanu dhaliishan aan jeedinay ay tahay Axmed Ismaaciil Samatar maanta uu og yahay qaranka Jamhuuriyadda Somaliland culayska saaran haday siyaasad dibadeed saaran haday gudatahay saaran dagaalada laascaanood ka socdo og yahay isqabsiga dhexdeena og yahay khilaafaadka wixii ay keeneen og yahay marka waxaan doonayaa Axmed Ismaaciil Samatar in aanu isku dhararin halkii magaranaysa metalo kale uu ka dhaqaaqay ninkii loo oran jiray Cabdirasaaq Khaliif oo inaga intuu isu keenaysiiyay dabeetana wuxuu noo soo galay dhexdhexaadintii la dhexdhexaadinay mucaaradka iyo maxaafidka uu ku jiray Cabdirasaaq Khaliif
garajaama gara Ismaaciil wuu ku jiray labadan ninba waxay ahaan basaasiin waxay munaafiqiin ku dhex jiray ergooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii ogaadeen in maanta Soomaaliland kala qaybsan tahay oo iyadu cadow isku noqotay bay taar direen telefoon bay direen waxay la hadleen G21 waxay yiraahdeen maantay ugu liidataa Soomaaliland inuu kala tuuri karaa Axmed Ismaaciil Samatar waxaan diidanahay godkii uu ku dhacay Cabdirasaaq Khaliif inuu isaguna godkaas oo kale ku dhacaan uga digayaa waxaan leeyahay ha noqonin munaafiq Soomaaliland ku dhex jira ee waxaad noqotaa muumin Soomaaliland ku dhex jira oo dhisa oo dhaqa kana tartan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka tartano waxaad u tartantaa codka dadka dadweynaha ka tartan horta anagu waa dadka horta way nagu dhaliilaan jabhada saarteen anagu jabhada ma saarin runtii jabhadu waxay ka dhiidhiday uu qaabkii dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ula dhaqantay mudaharaadkii 11 August oo dadkii la laayay iyo qaabkii siiriga ummadii siiriga wadatay rasaasta la dhacay may dadkan ka dhiidhiyeen dumarkii suuqa dhexdiisa lagu tumanayay bay ka kaceen raggii nolosha xiniyaha laga saarayay bay ka kaceen marka dawlad iyo shacabkeedu iska hor yimid bay ahayd wax mucaarad oo shaqo ku lahaa may ahayn gunaanadkii shirkiisan jaraa'id wuxuu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay tallaabo sharci ah ka qaado cidda ka dambaysa shaqooyinka muddooyinka u dambeeyay ka dhaxloosna beelaha deegaanka Cali Saahid ee gobolka Togdheer iyo degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag dalkan inay dawladda ka jirto waxa weeyaan waa inay cidii gardaran dawladdu tallaabo ka qaada reerkay doonto ha noqoto qofku doono ha noqdo anigayga idila hadlay ha noqdo Warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa